magaalada Muqdisho toddobaadkan waxaa kulliyadda caafimaadka ee jaamacadda Muqdisho ka qalin jabisay gabadh umula oo lagu magacaabo Idil Maxamed Cabdiraxmaan. Idil waxay VOAda u sheegtay inay hamigeedii ka midho dhalisay oo guurkeedii iyo inay hooyo noqotaa midna aanay ka hor istaagin inay ku guuleysato waxbarashadeeda. Warbixintan waxay isugu kaaya soo duway Jacfar Kukaay. waa gabar waa xaas waana hooyo laba carruur leh intaasoo idil oo Soomaalidu ay u arkaan caqabad aanay dumarku ka tallaabi karin marka ay waxbarasho doonayaan ayay kulansatay ugu dambeyntiina waa ay ka midho dhalisay hadafkeedii ahaa in ay maalin uun dhakhtar noqoto. waxaa la yidhaahdaa hooyo waxbaratay waa bulsho waxbaratay. idilna iyada oo fikirkaasi iyo hami kale oo muddaba ka dhex guuxayay ka jawaabaysa ayay kulliyadda caafimaadka jaamacadda Muqdisho waxbarashada ka bilowday sannadkii 2014. 2016 waxa ay ku dhiiratay inay guursato iyada oo iska dhagatiraysa hadallada hanjabinta ah ee kaga imanayay bulshada ku xeeran. teeda kale ee marka kulliyadda caafimaadka ku biiray dadku waxay dhahayeen gabar kulliyadda caafimaadka ma ka bixi karto waa kulliyad adag. sidoo kale waan ku biiray marka ku biiray aan guurkaanayta maxay ahayd go'aansan inaan guursadane dadku waxay dhahayeen la isku keeni karo kulliyadda caafimaadka iyo guur. أنا دبعتي ذو حوا وحن وأذكين والسمين كرمال كل إله challenge جدت كجعلها أو إنه حاس سميان إسكو ديان. إن كستو عقبضوه أي كوب بدنايين بدال ديراد أهنا أي لطمت حدنا وحا أي VOA وشيكتي إن مسكح ديدو أي آد أفرفران تيفهن كيدونا وقردي مركي أي قرستي كدب. dhabaha ay dooratay ma ahayn mid uu u baxdaadsan yahay. caqabadda ugu weynna waxa ay la kulmaysay marka ay uurka leedahay xilliga umusha iyo nuujinta kumaba sii jirto haddii uu imtixaanku ku soo beegmo iyada oo ku guda jirta mid ka mid ah xaaladahaasi. imtixaanka finalka markii la galay waxaan codsaday in imtixaanaad kale ii soo hormariyo maadaama xaamilo aan ahaa waxaan ka cabsanayay in aan dhalo anoo imtixaanka ii socdo ama anuu qaar ii dhimaya oo kale. nasiib wanaagna waxaan dhalay cunuga koowaad maalintii ugu dambeysay imtixaanka markaan galay habeenkeeda fooshiita iyo tiimada maalinka kalena aan dhalay. 6 sano oo halgana kadib idil toddobaadkan ayaa iyada oo umula waxa ay dhamaysay waxbarashadeedii jaamacadeed haddana waa dhakhtarad. madashii ay ku difaacanaysay buuggeeda waxa ay xaadirtay iyada oo carruurteeda midna gacanta haysata midka kalena xabadka ku sidata. waa muuqaal aad naadir ugu ah guud ahaan dunida gaar ahaana Soomaaliya oo inta badan gabdhuhu ay waxbarashada isaga haraan marka ay guursadaanba. maalinta difaacashada buuggeega maanan ugu talagelin marka hore in carruurta aan wato laakiin duruufo awgeed oo anigoo umul ah oo nuunahana uu caano cabaynin naas oo kaliya uu cabayo iyo hooyo oo carruurta iga reebi jirtay oo maalinta wiil walaalkii xanuunsanaa isbitaal kula jirtay isku kaybeersadeen. taasna waxay sababtay in nuunihii aan jaamacadda la tagto buuggeygana ku difaacdo. run ahaantii marka aan hoolka galay ardayda kulligiiskayga ahaa dhaqaatiirta macallimiinta marti sharafka oo dhammaantooda wada farxsan wejigooda dhoola cadeen iyo farxad ka muuqato qosol sacab markaan arkay run ahaantii waxaan dareemay farxad weyn iyo in maxay ahaatee rajo lunsaneed aan soo celiyay. waxaa la sheegaa in nin walba oo guulaysta ay haweenay garabka ka taagnay laakiin hadda idil waxa ay qiraysaa in guusheeda uu qayb aan la qiyaasi karin ka yahay saygeeda oo dhiirigelin iyo in ay himiladeeda gaarto gacan weyn ku siiyey. wiil walbo ama nin walbo Soomaaliyeed oo juhud badan soo geliyay xaaskiisa waxa kaliya uu sugayo waxa waaye geedkii uu abuurtay mirihiisa inuu gurto. run ahaantiina waxay u ahayd farxad weyn oo wuxuu dareemay sida inuu asi qalin jabiyay ama maxay ahaatee uu guushas gaaray. mar walbana wuxuu ahaa qof idiira geliya is dhabar taagan oo mararka qaar marka aan caajisay xitaa wuxuu soo xasuusi jiray hadafkeyga oo wuxuu dhigi jiray meesha arabta ma ilowday fadhi ka kac howshaada meesha ka sii wad ha quusanin waa gaari doontaa maalin oo waxaa jiri doonto daalkii iyo dhibaatada aad soo marto oo dhan aa iloobi doontid. inkasta oo tirada gabdhuhu ay ka badan yihiin tan wiilasha marka laga hadlayo ardayda aadda waxbarashada heerka jaamacadeed ee Soomaaliya haddana dadaalka ay idil soo gashay mirihiisana ay guratay waxa uu dhiirigelin u noqonayaa gabdho fara badan oo waxbarashada jecel guurna doonaya amaba mar dhow reera yeeshay.
waxaan filayaa gabar walba oo Soomaaliyeed oo niyad iskaga jabisay ama ku tuhmaysa ama shaki kaga jira in la isku keeni karin guurka iyo waxbarashada in ay jawaab waafi ah ka haysato ana tusaale noola u ahay sidoo kale gabar walba rajo weysay ama ka rajo dhigtay in ay guulo ka gaarto nolosha in ayadana sidoo kale ay dhiirigelin u tahay in ay wax walba qaban karto muddo 30 sano ah Soomaaliya waxa ay marna ahayd dawlad la'aan marka kalena waxa ka jiray dawlado tabar yar oo aanay awoodoodu gaarsiisnayn in ay dalka oo idil waxbarasho tayo leh ku fidiyaan muddadaasi waxaa gudaha ka hana qaaday ururo iyo shakhsiyaad u guntaday sidii aanu jiil dhami dhexda uga bixi lahayn waxaanay dalka oo qaybo badan oo ka mid ahi ay colaado ka jiraan ka hirgeliyeen waxbarasho ilaa heer jaamacadeeda idilna waxa ay tusaale muuqda u tahay dadaalkaasi ay dadka badani ku aflaxeen